xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa maanta ka hadashay dagaalka ka socda deegaanka Tuqarraq ee ay ku dagaalamayaan Somaliland iyo sidoo kale maamulka Puntland. Dagaalkan ayaa waxa ay ku baaqeen in si dhaqso ah loo joojiyo maadaama ay ku dhimanayaan dad Soomaaliyeed. Gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Gurey Xaaji Xasan ayaa saxaafadda u sheegay isku dilayaan wiil Soomaaliyeed oo digooda dig Soomaaliyeed ee waxa leenahay dagaal wiil ku dhintay wiil kuma dhasho waxa isku dilaysaan ciid Soomaaliya dib waxa tii Soomaali qof guulaysan qof loo guulaysan ma jiro aqligu ha taliyo dagaalkaas waxa ku baaqaynaa in si loo joojiyo siyaasiyiintu waxa leenahay hadda darajo ku doonaysaan dhiigga Soomaalida darajo ku helaysan dagaalkaas joojiya waxa ku baaqaynaa dhalinyarada yaa la isku dirin oo la isku gooyin in aqligu taliyo oo la hawlo daarintaas laga daayo xabada la ridayo waxa dhabana waa Soomaali waxa ku khasaaray waa Soomaali qof ku guulaysanayso oo bariir fitaan guushaysan ma jirto. dhanka kale Ambassador Cabdiraxmaan Dinaari oo kamid ah xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Somali Think Tank Center waxay ku baaqaysaa in la joojiyo xabada waa run Soomaaliya dagaal kale uma noqdo 27 sano kadib in maanta hadana dagaal intii la abaabulo oo aan wax macnaa ku fadhin waa nasiib darro waxaan leenahay xarun ahaan aad aan uga xunnahay dhiigga dhalinyarada Soomaaliyeed ee la isku goynayo oo weliba waxaan hadda la soconaa in ciidamo fara badan maaragtay dhinac kasta uu soo abaabulayo dhalinyarada Soomaaliyeedna ay meeshaasi ku geeriyoonayaan ay ku nafwaynayaan taasna ma aha suurtagal ma ahana wax la qaadan karo waxaan marka xarun ahaan aan soo jeedinaynaa oo aan u soo jeedinaynaa maamulada Somaliland iyo Puntland in arrintaas la joojiyo dadka walaalaha ana ay mas'uuliyiinta labada dhinac wada hadal iyo wada tashi ay ku dhameystaan ma jirto deegaan maxaan ku yiraahdaa dhammaan deegaanadu waa deegaan Soomaaliyeed waana dadkuna waa dad Soomaaliyeed waxaana muhiim ah in aqligu taliyo lagana faa'iisto wixii dagaal ah ee horay u soo dhacay cid ku guulaysatay ama cid laga guulaystay ma jirto tan sidaas ku dambeynaysa waxaan leenahay ka xarun ahaan arrintaasi waliba waxaan u baaqaynaa ma aha maamulada kaliya u baaqaynaa waxaan u baaqaynaa salaadiinta kala duwan ee dhinaca Somaliland iyo dhinaca Puntland labadaba in ay arrintaas ku baxaan oo ay maaragtay dhex galaan oo ay maamulada ku qasbaan in dhiigga walaalaha Soomaaliyeed maaragtay محمد عبد عثمان محمد فراديري ستار TV مقالة مقدشو.